بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي في الله، سيدي الإذن أوغيسييبا إن شاء الله تعالى ما أنت وحين قادن دونا سيمينار أما دورو كسابسا البيوت السعيدة، guryaha wanaagsan. ciwaanka dowladan waxaan filayaa inuu yahay qaybtii labaad. qaybtii koobaad dowladani horay bay u baxday sanadkii hore, saan rajeynayo insha Allah taala. qaybtana waa qaybtii labaad. seminaarkeenan maanta waxaa inoogu qoran 3 culimo oo uu hogaaminayo sheekhanaga iyo waalidkanaga Sheekh Maxamed Cabdi Umal xafidahu Allah tabaaraka wa taala, iyo sidoo kale sheekhanaga Sheekh Maxamed Shibli oo isaguna lahaan doona haddii alla idmo muxaadarada ugu dambaysa haddii alla idmo, iyo ustaad Maxamed Sheekh Xashan Ashkar oo isaguna ah mudiirka tanfiidka munadamatu al-ihsan oo ah munadamada barnaamijkan soo diyaarisay ayna la qabanayso muxuu ahaayo markasuu nuura litanmiya oo gabdhihiinan mashaayikhda hogaaminaya. dowladan waxaa loogu talagalay in lagu dhiso guryahan hadda inoo dhisan iyo in lagu dhiso guryaha inoo dhismi doona insha Allah taala. waxaan ugu talagalnay inay noqoto barnaamij socda oo aan maanta iyo biriba aan ku ekayn inta ay nafta nagu jirto dowraadka noocan oo kala ah oo lagu tarbiyeynayo gabdhaheenan muslimaadka iyo wiilashuba inay socdaan baan ugu talagalnay haddii alla idmo, iyagoo kala duwan oo kala noocnocyo ah. darsigeenan maanta ugu horeeya insha Allah taala sheekhanaga bilaabi doona haddii alla idmo, wuxuuna ku saabsan yahay guriga tusaalaha fiican leh ee tusaale ahaan loogu soo qaato guriga saciidka ee wanaagsan ama guriga saalixa ee fiican. qaybta waa qaybtii ugu horeysay insha Allah taala oo sheekhana gali doona haddii alla idmo. darsiga sheekha wuxuu socon doonaa 40 daqiiqo, 20na waa su'aalo waaye insha Allah taala. diyaarsada wixii su'aalaad qabtaan oo mowduuca ku saabsan insha Allah taala. 40 daqiiqo casharka iyo 20 daqiiqo asilooyinka ah. sheekha waxaan leenahay Sheekh Maxamed kusoo dhawo, barakallahu fiik. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الأخوات في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ومهد سكاله تبارك وتعالى نعم كيسية من كيسان تركوب كلاهين kamaalkiisa iyo dhammaystirnaantiisa aan dhimanaanta lahayn. allah tabaaraka wa tacaala waa ku ammaano yahay, waana ku mahadsan yahay, waana waajib in lagu mahadiyo oo lagu ammaano. intaa kadib, qoyska iyo gurigu aad buu muhiim u yahay. waa asaaska koowaad iyo bulukeetiga koowaad ee uu mujtamacu ka dhismo wey. marka hore waa nin gooni ah iyo haweeney gooni ah ama inan gooni ah. kadib markay kulmaan guri bay wada dhisayaan. gurigaa dhismay iyo guryo kaloo soo raaca ayaa mujtamaca iyo bulshadu ka dhismaan. waa meesha jiilka iyo generationada dambe kacaya, hadday wiilal yihiin iyo hadday gabdho yihiinba, madrasada ugu horreysay ka soo baxaan wey. waa meesha lagu barbaariyo jiilka ummadda hogaamiya
leh aqoon-yahan leh ee culimo leh ee madax leh ee nooc walba leh meeshay ka soo baxaan iyo dugsiga ugu horeeya soo saara waa guriga. gurigu waa meesha mujtamaca deganaanshihiisa iyo xasiloonidiisa asaas u ah. haddii gurigu uu halaabo mujtamacu waa halaysan yahay. mujtamaca inta qoysaskiisu is-haystaan oo dhisan yihiin waa mujtamac dhisan. mar haddii qoysasku burburaan mujtamacu waa burbursan yahay. sidaas daraaddeed ahmiyaddu weyn bay leedahay. diinteennuna mudnaan bay siisay qoyska iyo dhisidiisa iyo sidii gurigu u noqon lahaa guri dayasho mudan, guri nadiif ah, guri labada ruux ee wada joogaayay ay ku nasan yihiin oo ay ku xasilnoo yihiin oo ku raaxaystaan. ilmaha ay dhalaan ay mustaqbalkooda ku dhisaan, ayagana ku nastaan oo ku raaxaystaan. guri deganaansho iyo xasilooni leh wuxuu ku imaan karayaa diinteenna inoo sheegtay. waad ogsootiin walaalayaal, allah tabaaraka wa tacaala isaga aadamaha yaqaana. alaa yaclamu man khalaqa wa huwa allatiifu alkhabiir. see buusan u aqoonin? isagaaba abuuray. xubnihiisa xubin xubin iyo unug unug buu jidhka uga warhayaa rabbi tabaaraka wa tacaala. dabeecaddiisuu garanayaa. waxa wanaajiye iyo waxa halleeyuu kala yaqaanaa. waxa qalbigiisu ku degayay oo ku liibaanayay wuxuu ku khasaarayuu alle kala yaqaanaa. sidaas daraaddeed shuruucda rabbi dejiyey ee ugu talagalay guriga iyo qoyska wax ka fiicani ma jiro. nidaamyo faylasuuf uu dejiyey, bini aadan uu malmaluuqay, gaal kumaba sii jiray uusa samaystay oo uu yidhi qoysku u fiican yahay, macno weyn ma laha. rabbigeen tabaaraka wa tacaala oo waxa maqanna og, waxa soo socda og, wixii tegay og, innaga ina abuuray. allahaasaa tabaaraka wa tacaala shuruuc inoo dejiyey, asbaab inoo jideeyey. haddii aynu raacno qoysaskeennu ay noqonayaan meel lagu nasto oo lagu naaloodo oo lagu raaxaysto oo labada isqabta ee guriga dhisay iyo inta la joogtaba meel ay ku barwaaqoobaan. sidaasuu noqon karaya. wakhtigoo kooban daraaddii haddii aan toos u gadagalo asbaab baa jirta gurigu uu ku noqon karo guri mithaali ah. loo baahan yahay hooyo kasta inay ogaato, inan kasta inay ogaato, gabadh kasta inay ogaato, nin kasta inuu ogaado, wiil kasta inuu barto, si guryaha looga dhigo meel dayasho mudan oo qiimo leh. asbaabtaa waxaa ka mid a si kooban haddaan u tilmaamo. kow, an yakuuna alikhtiyaaru alawal cala asaasi addiini waalkhuluq. marka ugu horreysa guriga la dhisayo waxa la isku dooranayo waa inuu yahay diin iyo akhlaaq. markaad doonayso cidda nolosha kula wadaagaysa, dumar baa tahay, ninka nolosha kula wadaagaya markaad doonayso inaad doorato waa inaad marka koobaad ka fiiriso diintiisa iyo akhlaaqdiisa. wakadalika ninka haweenayda nolosha la wadaagaysaay marka koobaad waa inuu ka fiiriyo diinta iyo akhlaaqda. laanna iyagaa waxay yidhaahdeen waxay yihiin raasamaalka wax raandhiis leh oo hadhaya waa ruuxa diintiisa iyo akhlaaqdiisa way. waxa guriga saameynaya waa diinta iyo akhlaaqda way. intaa hadday wax dheer yihiin oo ruuxu la dheeryahay ama haweentu la dheer tahay ama ninku la dheeryahay, taasi waa siyaado, waxaaga wax lagugu darwa. macnaha way macnaha nabigeenu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markuu leeyahay haweenka 4 mid baa loo guursadaa sida caadiga ah loogu xishaa. qurux ay leedahay dhaban baa loogu xishaa, xoolo ay leedahay baa loogu xishaa, sharaf iyo reer wanaagsan ay ka soo jeedaan loogu xishaa, diinteeda loogu xishaa. afarta markuu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri fadfar bidaati diini taribad yadak. diinta mudnaanta si
inta kale hadday wax dheer yihiin oo wax kale la wadato ama socoto dhib ma leh laakiin diinta midda ku guulaysa rasuulku sallallahu alayhi wasallam xadiidkii kalena waa kii rasuulku sallallahu alayhi wasallam markuu ka hadlayay dumarka yaa loo guurinayay si guursanayaan oo rasuulku sallallahu alayhi wasallam hadduu idin yimaado nin aad diintiisa iyo akhlaaqdiisa ku kalsoontihiin u guuriya yani gabadhiyay guursanaysaa baa laga hadlay ninkay nolosha la wadaagaysa yuuya waa nin diin iyo akhlaaq midaasaa marka asaaska koobaad hadday labada ruux diin iyo akhlaaq leeyihiin waa asaaskii guriga ku dhismi lahaa waa nidaamkii guriga lagu maamuli lahaa waa shuruucdii guriga kala hagi lahayd waa asaaska horaba haddii laga ilduufo oo ikhtiyaarka iyo doorashadu halowdo markaasi guriga dhib badan baa soo gaadhay wax badanna gurigu waa waayaya qodobka labaad waxa weeye markii guriga la dhisayo arooska iyo xafladiisa iyo damaashaadka iyo asaaska waa in alla ka cabsi lagu saleeyo la iska ilaaliyo wixii shariicada ilaahay khilaafsan الله تبارك وتعالى وحيري أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم لبقري ومنا اللعب سيدي سلقو سلايي أو لقو أساس مدنا معصية يدن بلقو أساسي بو الله تبارك وتعالى كلا صاعي أو كلا قاضي اسمه قاري كران اسكو مدنا معه قرية إلهي معصيدي سي الدنبق لغو أساسي أو صدق الله قردقي حفلة دي با شريعة لغو خلافي أروسكي با لغو خلافي قرية با لغو خلافي قوشي با لغو خلافي قري إلهي شرعي قيسة إيا خلاف الله با لغو سلي ليباني ماي لغونا الدقي ماي لغونا حسيلي ماي حيا لي مركابة قرية واحد نحدكتي بمبا ayaa dhex dhigtan bamba qarxaysa dambi aafad ku bilowday arintaasina waxa laga yaabaa in ay saamayso xiriirka labadiina gurigii iyo wada noolaanshihi inay saamayso caruurtii guriga ka iimaanaysa iyo mirihii la doonayay in meesha ay ka beermaan dunuubtaasi waxa laga yaabaa in ay keento inuu gurigu burburo sidaas daraadeed asaaska guriga waa in alla ka cabsi lagu saleeyo wixii ilaahay baneeyay waxaan ahayn waa in laga ilaaliyo arooska iyo dhismaha guriga iyo yaani marka la yagleelayo guriga oo labada ruux ay guriga dhisanayaan waa qodob iyadana muhiim ah qodobka saddexaad waxa weeye guriyaha waxa lagu dhisaa bayna almawaddati warahma labada ruux ee wada jooga marka kalgacayl iyo jacayl bay soo hayaan marna waxay ku wada dhaqmayaan naxariis in la isu naxariisto oo la isu turo oo la isu danqado oo ruuxba ruuxa kaleeto uu uga naxariisto wixii aan munaasib ahayn marna kalgacayl iyo jacayl baa labada qalbi isugu jiro kaasuu gurigu ku salaysan yahay hagayo hogaaminay oo calaaqadu marka waa calaaqa aad u sarreys marwa kalgacayl marna waa naxariis معناها واحد المامس آيات ربي تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة الله تبارك وتعالى وحليها آياته سوحا كمدا علامات كي أستامها إلهي أودي سكتسي قدرتي سوحا كمدا إنو إذين أبوري نفتنا إذين كأبوري أزواجا حاسس رقي دمر بو أبوري دمر كينا رقو أبوري لبدا جنسي وحا ليسو أبوري لتسكنوا إليها إناد كحسشان وحسل دقنانشو والراحو يا
sidaas daraaddeed baa waxaa la yidhaahdaa labada ruux haweenayduna markay ninkeeda la joogto bay nolosheeda ugu degan tahay ninkuna markuu xaaskiisa la joogu nolosha ugu degan yahay litaskunuu ilayha waa hadduu yahay guri hagaagsan markaasaa rabbi wuxuu uhi tabaaraka watacaala wajacala baynakum mawaddatan waraxma alla wuxuu dhexdiinna dhigay kalgacayl iyo naxariis bimacnaa marna waa laisjecel yahay marna waa laysu naxariisanaya xataa haddii jacaylkii waxoogaa uu daciifo oo cunsurkii jacaylka iyo kalgacaylka isbeddel ku yimaado waa inaan meesha laga waayin naxariis aan laga waayin waxaa la sheegaa athar waxaa la wariyaa cumar radia allahu tacaala canhu wa ardaah khaliifatu raashid ayaa waxaa u yimid nin baa u yimid ninkaa u yimid wuxuu yidhi cumar buu wuxuu ku leeyahy waqtigii cumar ibnu khataab radia allahu tacaala canhu wa ardaahum waxaan dhihi lahaa ayaa nin baa xaaskiisii wuxuu ku yidhi nashadtuki billaah hal tuxibbiinii ilaahay baan kugu dhaariye oon kugu weydiine ma i jeceshahay buu ku yidhi yuu ku leeyahay xaaskiisi ilaahan kugu dhaariye ma i jeceshahay buu ku yidhi markaasaa waxay tidhi amaa id nashadtanii billaahi falaa haddaad ilaahay ugu dhaarisay jawaabtu waa maya haddaadan idhaarin lahayn waxoogaa si kaleeto waxaa u dhigi lahaa hadalka waa u dhigi lahaa laakiin haddayba dhaar meesha soo gashay kuma jecli bay tiri cajaa'ib badan ninkii waa soo baxay oo markaasuu cumar u yimid cumar ibn khataab radia allahu tacaala canhu markaasuu u cidiray iyadii hala keeno buuri islaanta tidhi ninkeeda ku tidhi kuma jecli hala keeno buuri waa la keeno markaas wuxuu ku yidhi anti alatii taquuliina lizawjaki laa uxibuk ma adigaa haweenayda ninkeedii ku tidhi kuma jecel markaasaa waxay tidhi yaa amiira almu'miniin nashadanii billaah afa akdib ilaahay buu igu dhaariyey ma been baan sheegaa bay tidhi ninkan isagaa hadalka meel xun ka bilaabay meel khalada ka bilaabay maxaa dhaar keenay marka horeba hadduu ilaahay igu dhaariyey ma been baan u sheegaa bay tidhi run baan iska sheegay maguma jecli baan idhi markaasaa wuxuu yidhi nacam fakdibiih haa buuli been u sheeg soo kuma dhaarin oo kuma dhihin may jecesha been u sheeg buu ku yidhi oo waxaad tidhaahdaa waa ku jecla adoo beeniley ah say ku dhici kartaa waay lianna wax weeyaan sida xadiidka nebiga ku sugan sal alla alayh wasalam xaaladda gurigu ka maarmi waayo ninku xaaladaa loo ogol yahay oo haweenaydiisa been u sheegi karo haweenaydana sidoo kale riwaayaadka xadiidka qaar ka mid say tilmaamayaan markuu gurigu ka maarmi waayo marmar baa loo ruqseeyey inay been sheegto dee haddiiba gurigii ku dumahayaba namay jeceshahay war waan ku jeclahay iska dheh shil mushkila ya been lagaaga qori maayo beenaa xaaladaha ay bannaayin bay ka mid marka wuxuu ku yidhi fakdibiihi been u sheeg buuri markaasaa wuxuu yidhi cumar radi allahu tacaala canhu ardaa laysa kullu lbuyuuti tubna cala alxubbi buuri guryaha oo dhan jacayl laguma dhisa buuri walaakina annaasa yatacaasharuuna bilislaami waalaxsaab dadku marar fara badan ayagoon isjeclayn ayay haddana islaamnimo iyo naxariis iyo ixsaan ku wada joogaan buu yidhi saas daraaddeed adar jacaylku laazima ah mar gurigu waa kalgacayl marna waa naxariis waa macnaha macnad allah tilmaamay tabaaraka wa tacaala mawaddatan wa raxma aad bay hadda arrintaasi u badan tahayoo su-aalaha badan ee noo yimaaday ka mid tahay sheekhow ninkaygu ima jecla sidaas daraaddeed ninaan ijeclayn anigu la joogi maayo maxaa kalood ka sheeganaysaa sheekhsiisa kale waa fiican yahay biilka wuu bixiyaa guri fiican buu dejiyey ilmaha waa u roon yahay aniga waa ii roon yahay waa gacan furan yahay maasha allah laakiin imaba jeclaba bacdina hadda ninaan ijeclayn seeluu la joogayaa waa war heedhe jacayl keliya guryuhu kuma socdaane hawl kalaa jirtee laysa kullu lbuyuuti tubna cala alxubbi guryahoo dhan jacayl kuma dhisna macnaha inaynu fahanno waa laga maarmaanoo
صح labada ruux inay isu muujiyaan waxa qalbigooda ku jiray way fiicanta nabi maxamed salawaatu rabbi wa salaamu alayhi marka la weydiiyo dadka yaad ugu jeceshahay Aisha u dhihi jiray yaad ugu jeceshahay Aisha u dhihi jiray waxaaskiis salawaatu rabbi wa salaamu alayhi marka in la muujiyo dhima leh laakiin hadduu meesha ka baxo gurigu u dumi maaye naxariis iyo hawlo kaliya ihsaan baa jira oo guriyuhu ku dhisnaanaya waa arin iyadana laga maarmaano qodobka afraadi waxa weeye oo guriyaha tusaalaha ah ee wanaagsan ee mithaaliga ah asbaabteeda kamida waxa weeye athiqa almutabadala bayna at-tarafayn labada dhinac ee gurigu ka dhaxeeyo waa ninka iyo xaaskiisa waa inay kalsooni ka dhaxayso waa inay isku kalsoon yihiin waa inay kala shakisnayn haddii shaki meesha soo galo oo ninkuna xaaskiisa uu kalsoonida kala laabto ayaduna kalsoonida kala laabato oo la kala shakiyo isagii wuxuu ka shakisan yahay islaantani way wareegaysataa maxay la wareegtaa kaale ma qarafaysataa asagiina wuxuu leeyahay mar alla markaan dhaqaaqaba guriga waa la soo dawmaraa waswaas buu qabaa maxay tahay raadkan meeshan maray meeshan waxbaan ku arkay tuhum buu qabaa waswaas waa cudur ayadiina sidoo kale to kalsooni ma qabto ninkeeda kuma kalsoona oo balaaye ka rumaysanta guri aan labada ruux ee wada dhistay kalsooni dhex oolin oo shaki iyo waswaas dhex yaallo laguma degana gurigaas ma xasiloona sidaas daraadeed waa laga maarmaan in la abuuro isku kalsooni iyo thiqa bayniya labada ruux dhexdooda kalsooni inay timaado shariicadeenu waxay aad u fogeysay in ruuxa meel bilaasha laga tuhmo yaa ayuha alladina aamanu ijtanibuu kathiira min adhann ina bacda adhanni ithmun walaa tajassasuu war dadka mu'miniinta ahow ka fogaada in badan oo tuhmada ka mida tuhmada qaarkeed iyo malaha qaarkii waa dembi inaad ruuxii iska malayso iska tuhunto markaase haddana waxaa la daba dhigay xataa hadday tuhma ku soo gasho qalbigaaga shaytaan wax ku soo rido tuhmo kugu rido tuhmadii ha baadhbaadhin oo waan xaqiijinayaa ha dhihi walaa tajassasuu tajassusku waa tatabbuca waay wixii kugu soo dhacay shaydaan qalbigaaga ku riday taa tiraada waa ka salgaadhaya waa xaqiijinaya dabagal ha samaynay isaga hadh markii horeba tuhmay ahay waswaaskii iyo tuhmadii baan haddana xaqiijinaya dabagal baan samaynaya waa baadhaya waa laynoo diiday xadiidkii nabiguna wuxuu ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waidaa danantum falaa tuxaqiquu haddii tuhma idin gasho ha xaqiijinina iska daaya isaga hadh bal laba ruux oo adigu rumaysan inay isa sixrahayaan say u wada noolanayaan ninkani wuxuu leeyahay islaantan baa isxirtay iyadii waxay leedahay waa falfallow oo balaayu ii xidhay war seed u wada noolaanaysaan kalsoonidii aawa iyadii waxay rumaysan tahay ninkani daacad ma aha sidana kuma qumanee islaamo fara badan baa u qarsoon oo duurka ugu jira marba hotel dabagal dad bay daba dhigtaa jaajuusiin bay u samaysaa xagee buu galaa maalintii xagee buu ka shaqeeyaa war heedhe war ma kuu sheega war jiraayo cakaaruu imanoo wax qarsoon ma jiree aayar tartiibtaada tuhmada iska dayo waswaaska shaydaanka iyo sheekadiisa haddaad tuhumtana waxba ha baadhbaadhine iska tartiibso shareecadu saasay leedahay kalsoonidaa labada ruux ay qabaan haddayna laba kalsooni isku qaba ahayn gurigaasi deganaansho waa ka lumaya gurigii qalbigiibaa waxgalaya qalbigu hadduu waxgalana waa meeshii guriga waa meeshii aadamuhu uu ka nasan lahaa waa nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi ina allaha yubqidu alghiirata fii gayri riiba waxaa jira masayrka iyo ficilada mid ilaahay jecel yahay iyo mid ilaahay necab yahay qiirada iyo masayrka ilaahay necab yahay waxaa weeye
ayadoo wax laga shakiyaba aysan meesha oolin in uu ruuxu uun iska masayro iska qiiroodo baadhis iyo dagaal uu isaga jiro wax keenayana meesha maba yaalaba taa ilaahay waa nacab yahay tabaaraka wa tacaala u fiirsada nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markii xaadithadii been abuuradka ee xaaskiisa lagu sameeyey caaisha umulmu'miniin radia allahu tacaala canhuma qiso dheer dhacdo dheer bay ahayd oo munaafiqiin iyo kuwa khariban ayaa xaaskii nabiga sallallahu alayhi wasallam waxay ku sheegeen inay sinaysatay wal ciyaadu billah arintaasi magaaladii madiina ay ku faaftay ma maqasheen Aisha oo xaaskii nabiga ahayd baa waxaasi ku dhacdo wasakhowday nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi arintii iyada ahayd hal bil oo kaamil ah waxyina ma soo degin cadeeya arintiina magaaladii bay ku jirtaa waa lagu wareeray Aisha naftu inay ka dhacdayba ku sigatay guriga hooyadeed bay ku urursatay xaalad adag baa la galay nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi xaaladda magaaladu wareersanta xaaskiisina tuumo iyo shaki la geliyay wuxuu rasuulku yiri salawaatu rabbi wasalaamu calayhi fa wallahi ma calimtu ala ahli khayra ilaahi baan ku dhaartay reerkayga iyo qoyskayga waxaan khayr ahayn kuma ogi xaaskayga waa aqaana ninka lagu tuhunsan yahayna waa aqaana khayr waxaan ahay reerkayga ku malayn maaye war ninkaas yaa iga qabta waa ninkii beenta abaabulay oo abuuray marka ma calimtu ala ahli illa khayran reerkayga waxaan khayr ahayn kuma ogi waa kalsooni waa kalsoonidaasi marka labada ruux waa inay dhex taalo markii la doonayo gurigu inuu noqdo guri miisaali ah guri lagu daydo oo deganoonshiya xasilooni leh qodobka shanaadi wax weeyaan guriyaha iyo qoysasku waxayna ka maarmin الالتزام بمنهج الطاعة والقوامة gurigu waa inuu kala dambeyn leeyahay labada ruux ee gurigu waa u dhisan yahay ninkii xaaskiisa marwada guriga iska leh waa inay jidkeeda taqaano waa inay taqaano jidkeeda waa inay taqaano xaqeeda waa inay taqaano mas'uuliyadeeda waa inay jidkeeda qabsato ninkan odayga ah reerka uu u dhisan yahayna asaguna waa inuu garanayo waajibkiisa labada dariiq ee shariicadu kala samaysay nin walba jidkiisa inuu qabsado waay haddii guriguba nidaam iyo kala dambeynba uu salahayn yaa la amri yaa amar qaada yaa la adeeci yaa la adeecayn waaba la isku haystaaba kala dambeyn male guri aan kala dambeyn lahayn wax soconaya ma ilaahi tabaaraka wa tacaala aadamaha aad u yaqaana wuxuu inoo sheegay aadamuhu waa kaain ijtimaaci bini aadamku sidiisaba ruux keligii u noolaan kara ma jiro waa inuu dad la noolaado meeshii laba ruux iyo ka badan isugu timaado dan iyo waxna ka dhaxeeyaanna waa in kala dambeyn loo sameeyo nabigeenu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waa ka yidhi haddii saddex ruux iyo ka badan safraan waa inay amiir samaystaan waa socoto waa safar waa inay kala dambeyn leeyihiin way ninka arkay cibaadadii salaadii kala dambeyn baa laynoo sameeyey imaam iyo dadkii intooda kale ku xidhan qoyskii kala dambeyn baa loo sameeyey الرجال قوامون على النساء ninkii baa guriga oday iyo mas'uul looga dhigay haweenaydii iyo marwadii guriga la wadaagaysana waxa lagu yiri fasalihatu qanitat dumarka kuwooda wanaagsan ee qiimaha leh waa kuwa allahoodana ateeca ninkoodana ateeca markaasay shariicadu waxay gaarsiisay kala dambeynta noocaas siday asaas u tahay guriyuhu ayna uga maarmin heer waxa la gaarsiiyay
haweenaydu ninkeeda haddaysan ateecin in ilaahay u cadhoonayo sababtu maxay tahay in xataa jannadeedii lagu xidho la yidhaahdo haweenayda ninkeeda ateecda ayaa janno gelaysa sababtu waxaa weeye gurigii kala dambayn la-aan ma dhisnaan karayo ma socon karta waxa la yidhaahdo ana amiirun wa anta amiir faman yasuuqi alximaar adiguna madax baa tahay anna madax baan ahaye dee yaa dameerka hor qaadaya oo kaxaynaya ya haddaad rabto adiguna inaad dameerka korkiisa fuusho oo isagu hoggaanka qabto isaguna sidoo kale uu rabo see la yeelawa sidaas daraaddeed guryuhu waxay qiimo ku leeyihiin wax la yidhahdo kala dambayn waa mid macnaha way macnaha qur-aanka kariimku tilmaamay oo rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala alrijaalu qawaamuuna cala annisaa haweentana la yidhi ninkaaga ka dambe wixii aan shareecada khilaafsanayn amarkiisa yeel asagana la yidhi gurigii adaa mas-uulka ee guriga toosi oo hagaaji oo adigaa berri lagaala xisaabtamaya la yidhi waay nidaamkaasi markii ummadaha qaarkood ay lumiyeen gaaladan caddaankaa somaydan arkin ee hadda ku faana inay hormareen inay ilbaxeen inay adduunka gaadheen heer lagu daydo gaaladan caddaankae sheegtaa somaydan arkin markay qodobkaas burburiyeen oo ay yidhaahdeen ninka iyo haweentiisu guriga waa ku siman yihiin maamulkiisa madaxna isuma aha markay yidhaahdeen waxaa ka dhalatay inay guryihii burburaan haweentiina gooni u kadeedanto ninkiina gooni u kadeedmo guryahoodiina burburaan la ysku rafaado kala orod baa ka dhacay laakiin diinteenna xikmadda rabbi u fiirso tabaaraka wa tacaala kala dambayntan guriga loo sameeyey hooyadiina sacaado iyo liibaan bay siinaysaa iyo xasilooni odaygii gurigana xasilooni iyo deganaanshay siinaysaa waa la isku liibaanaya waana laga maarmaan guriga inuu kala dambayn yeesho taa macnaheedu ma aha inuu ninku ku amar taagleeyo haweenta ma aha macnaheedu ma aha inuu noqdo dictator sida alla siduu isagu raba yeela ma aha macnaheedu wax weeyaan sida rabbi mu'miniinta ku tilmaamay wa amruhum shuuraa baynahum mu'miniinta oo dhan arrinkoodu waa tashi waa la tashadaa ra'yigaa la celceliyaa waa la wadaagaa marka la wada tashado kadibna go-aan waa in la qaato go-aanku marka waa inuu soo fulo guriga mas-uuliyadda amarka isagaa laakiin haweentii caqli bay leedahay waa bini aadan aqoon bay leedahay laga yaabo isagayna ka caqli badan tahay waa suurtagal waxaa la yidhi la tasho tashi iyo celcelin iyo wada tashi laakiin markay noqoto fulin haweentu waa inay ninkeeda ka dambayso guryaha sidaasay ku gaadhaan liibaan hadday noqon weydo dee waxaa imaanaysa in gurigii lagu dagaalamo in gurigu mar walba uu ka taagnaado wax la yidhaahdo yacni waxa weeye fawda ka taagnaato in qoorta la isugu jiro ayadiina uma roona isagii uma roona ilmihii uma roona taasina waa qodob muhiim ah qodobka xigaayu wuxuu yahay التعاون على ذكر الله تبارك وتعالى gurigu wuxuu ku liibaanayo ku dagaayo ku xasila in labada ruux ee guriga dhistay isu kaalmaystaan ilaahay dhikrigiisa xuska Allah tabaaraka wa taala ilaahay taacadiisa maxaa yeelay qulubta aadamuhu waxay ku xasilaan waa ilaahay dhikrigiisa guryuhuna waxay ku noolaadaan waa ilaahay dhikrigiisa guri ilaahay lagu xusayo iyo guri aan ilaahay lagu xusaynin bakhti iyo noolay isula mid yihiin guri ilaahay lagu xusayo quraan lagu akhrinayo daaca ka socoto lagu tukanayo waa nool yahay guri aan ilaahay lagu xusaynin oo macaasi iyo dunuub ka socotana waa bakhti saas daradeed marka labada ruux ay isu kaashadaan ilaahay daacadiisa isu kaashadaan ilaahay tabaaraka wa tacaala qulubtoodu isjeclaysiinaya ilaahay tabaaraka wa tacaala xasilooni buu dhaxal siinaya allah tabaaraka wa tacaala gurigoodiibu wuxuu ka dhigayaa guri barakaysan looga dhigaya dikriga ilaahay baa barakaynaya alaa bidikri illaahi tatma'innu lquluub dikriga ilaahay baa quluubtu ku xasishaa sida rabbi leeyahay tabaaraka wa tacaala nabigeenna waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu yidhi raxima allahu rajulan qaama min alleyli fasallaa waayqada imra'atahu fasallat allah u naxariisto nin habeenkii intuu hurdada ka kacay tukaday markuu tukaday kadibna xaaskiisa kiciyey iyadiina ay tukatay
hadday kici weydana intuu biyo soo qaado wajiga kaga saydha say hurdada uga kacay allaha u naxariista haweeney habeenkii kacday oo tukatay oo ninkeedii kicisay oo isaguna tukaday oo hadduu kici waayo intay biyo soo qaado wajiga kaga saydha u fiirsada khayr baa la isu kaashanaya sooma daaca la isu kaashanaya gurigaasi waa guri naxariiseed waa ila nabigu wuxuu ka cabiray raxima allah u naxariista waa guri naxariis iyo xasilooni ku soo degtay weeye guri daacada ilaahay la isu kaashanayo quraankii la isu kaashanayo salaadii la isu kaashanayo dhikriga rabbi la isu kaashanayo wanaagga la isfarayo xumaanta la iska reebayo la isu naseexaynayo gurigaasi waa guri barakaysan xadiidkaasi axmed iyo keyrkii baa soo saaray waa min xadiid abi hurayra waxayna tilmaamaysaa guriyuhu waxay ku barakoobaan ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa inay labada ruux isu kaalmaystaan wakadalika inay caruurtooduna sidaa ku tarbiyoodo qodobka toddobaad wuxuu yahay walaalayaal oo keeni karaya guryaheenu inay noqdaan guryo mithaali oo qiimo badan oo ku xasilo intaan adduunka joogno aakhiraba intaynaan gaadhin waxaa ka mid a tanqiyatu lbeyt min almuxaramaati sharciya guriga in laga nadiifiyo laga daahiriyo wixii shariicadu diiday waxyaalo badan oo waxaa jira shayaadiintu soo raacdo oo guryaha dhex yaala guriga ka saara wixii muusig ka daaya guryaha heesaha guryaha ka daaya sawirada foosha xun ee qaawan guryaha ka daaya qashinkaasi waxaa soo raaca shayaadiinta soo raaca gurigii wuxuu noqonayaa qashin qub shayaadiintu degtuu noqonaya laana sida nabigeena ka sugan sallallahu alayhi wasallam meesha qashinka iyo macaasidu taallo waa xero shayaadiintu isugu timaado way shayaadiintu hoy u tahay saas daraadeed markaan musqudka galayno waxaynu nidhaahnaa allahumma inni a'uudhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith laana meesha musqulaha iyo meelaha qashinka shayaadiinta degan jinka degan ilaahay baad ka maangalaysaa marka gurigaagi hadduu qashin qub noqdo marka oo meel macaasi iyo dunuub iyo balaaya ka socota ay noqoto ilaahay tabaaraka wa tacaala dabbu gelinaya taa waad ku talageli labada ruuxna ee gurigooda sida raalli uga ah iyo guriga noocaasana ilaahay waa isku diraya ilaahay tabaaraka wa tacaala iyagu qoorta isu gelinaya waxaa dunuubta waxyaalaha ka dhasha iyo raadka ay keenaan bay ka mid tahay nabigeenu wuxuu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi walladii nafsu muxammadin biyadihi ما تواد اثنان ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما إلهي نفت النبي محمد قعنتي سأي كتشرتان كل أرتيب رسولك صلى الله عليه وسلم الله بالروح اسمتش على ذا أول لك لقيو الله بالروح استعلان شري كالقعيد لحيا لي اسم النعان إلا هذا اسنعان نعيبك وحا كينه dambi uu midkood galay midkood baa dambi galay dambigii uu galaa waxaa ka dhashay inuu qalbigiisa saameeyo ku abuuro nacay uu reerkiisa nacab yahay ama islaantiisiibaa qalbigeedii waxaa la geliyey inay nacdo ilaan quluubta ilahay baa gacanta ku haye القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء qalbiyada ilaahay gacantiisa ku jiraan sidoo doonuna u rogrogaa ruuxu doonuu ku jeclaysiin ruuxu doonana uu kugu diray Allah tabaaraka wa taala awood buu leeyahay sidaas daraadeed dambi la galay baa keena dadku inay isnacaan guryuhu inay gubtaan in lagu kala qaxo in guryaha muxuu ahay xasiloonidii raaxadu ka baabaado in guryuhu ay noqdaan silic lagu wada noolaado iyo rafaad inta badan waxa keena waa dunuubta la galayo hadii gurigaagii ay dunuubtii macaasidii ka socoto ilaahay ba lagu muxuu ahay lagu caasinayo xasilooni waa fogtahay markaa saas daraadeed guryaha ka saara ka fogeeya ka ilaaliya wixii diinta ilaahay ka hor imaanaya sharciga ka hor imaanaya qodobka xigay wuxuu yahay oo sideedaad qoyska xasiloonidiisa waxa kamida arrimo dhowr oo hal xadiis oo xadiista nabigeena ku soo arooray salawaatu rabbi wa salaam ala xadiiski sa'd bin abi waqas iyo qeyrkii nabi wuxuu sallallahu alayhi wasallam afar arimood arba'atun min as-sa'ada
afar arrimood waxay ka mid yihiin liibaantay ka mid yihiin almar'atu الصaalixa wاlmaskan اlwaasic waاljaaru الصaalixu wاlmarkabu اlhanii haweenay wanaagsan inay guriga joogtoy xaas u tahay ninka wakadalika xaasku inay ninkeedu wanaagsan yahay waa sacaadiya liibaan gurigu inuu yahay guri waasac oo cidhiidhi aan ahayn waa laba dariskaagu inay daris wanaagsan yihiin oo dariskuusan kugu xumaanin gaadiid wanaagsan oo kuu layliyan oo isagana ku qaadi kara inaad haysato afartaasi waa liibaanta adduunka waa afarna nebigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam waa shaqaawa waa silic iyo rafaad iyo dhib weeye waa darisku inuu kugu xumaado xaasku inay ninka ka xumaato ama ninka xaasku inay ninku ka xumaado ama gurigu inuu cidhiidhi ku noqdo qoyska ama inuu gaadiidku ka xumaado afartaasina nebigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam nolosha cidhiidhi iyo dhib bay gelisaa oo sacaadadii iyo xasiloonidii bay baabi'isaa qodobka sagaalaadi waxa weeyaan maadaama bini aadamku uu yahay khataa mid gaf badan oo haweentuna waa bini aadam ninkuna waa bini aadamkana dabeecadiisu waxa way inuu gafo inuu xadgudbo inuu khaldamo waa inaad ogaato ciddaad la mucaamaloonaysa inay tahay bini aadam gaf badan eedan ugu talagelin inaad malaa'ig la mucaamaloonayso inta badan waxaa dhaca intaan laysu imaanin oo laysguursanin oo bannaanka la kala joogo oo abowii abbaayadu ay socoto oo muxuu ahay waan ku jeclahay iyo waan qalbigayga kuu gubanayay hawshu intay socoto waxaad moodaa marka laysu yimaado in malaa'ig gabadhuna waxay sawiranaysaa wallaahi ninkan sidan u hadlahaye khatarta ah malaha wax weeye khalad ka imaan maayo isaguna wuxuu isleeyahay khalad ka imaan maayo sawirkaa haddaad guri ku tagto waa waxa ugu horreeya gurigaba burburiyo waa inaad ku talagasho ruuxan waa bini aadam khalad baa ka imaan afkiisa adinkiisa dhaqankiisa khaladka ka yimaadaayse maxaa xal ah marka sabir waa qodobkaas guryaha waa in loo sabro waa inay haweentu ninkeeda u sabirto waa inuu ninku xaaskiisa u sabro waa in yani khaladaadka dhacaya aan laga ficil la qaadanin wax waxaa jira le taqaaful yidhaha taqaafulka waxaa la yidhahdaa ismoogaysiin haddaad noqoto uun khalad yar markaad aragtaba uun aada gubato ood xamili weydo oo aad kala duldhacdo uun ruuxii khaladka sameeyey ruuxa laftiisii waa dhibsanaya saas daraaddeed marar fara badan waa laga indhalaabtaa khaladkii oo dhacaya adigoo lagugu khaldamayo baa haddana taqaaful la sameeya yani waxa weeyaan kaana adoon ka warhaynin oo kalaa la yska dhigaa allahuma hawshu inay gacanta ka baxda mooyaane marka aad u baahdo inaad baraarujisa mooyaane laakiin mar kasta wixii dhacee khalad haddaad un la soo boodo noloshu kadeed bay noqoni waa laysku rafaadi sidaas daraaddeed sabirku waa laga maarmaan oo labada dhinacba in laysu sabro maxaa yeelay allah tabaaraka wa tacaala aadamahan saasuu ugu talagalay nebi maxamed ood garanaysaan salawaatu rabbi wasalaamu calayh inuu sayidulbashar ahaa akhlaaqda ilaahay u dhammaystiray saxaabadii dumarkiisii ummahaatulmu'miniin oo dumarka ugu qiimo badnaa ayaa marmarka qaarkood wax dhici jireen marmarka qaarkood baa laysqoonsan jiray haddana maca daalika sabirkaa iyo dulqaadkaasay howluhu ku socdeen waa in marka guryuhu isu dulqaataan oo sabir lagu maamulo wayo guryaha saas daraaddeed baa rabbigeen tabaaraka wa tacala wuxuu uhi wastaciinuu bisabri wasalaa salaada iyo sabirka kaashada salaada iyo sabirka kaalmaysta baa la yidhi tabaaraka wa tacaala qodobka ugu dambeeya tobnaadi waxa weeye oo gurigu inuu guri degan oo xasiloon noqdo ka qayb qaadan kara inay labada ruux dabeecad ahaan isu fahmaan waa inaad ninkaaga akhrido ood akhlaaqdiisa akhrido dhaqankiisa akhrido dabeecaddiisa akhrido wuxuu qoonsado akhrido wuxuu jecel yahay akhrido sidoo kale ninkuna waa inuu xaaskiisa akhriyo markii la isfahmo isfahamkaasi wuxuu ka bilowdaa nolol degan oo xasilooni baa ka bilaabata u fiirsada nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhi umulmu'miniina caaisha baa wuxuu ku leeyahay innii la acrifu ghadabaka wa ridaaka caaishay anigu waan ku garan markaad xanaaqsan tahay iyo markaad faraxsantood raalli tahay
adoon ii sheegin baan ku garan buu nabigu sallallahu alayhi wasallam markaas waxay tiri wa kayfa ta'rifu dhaka ya rasuulallah oo seed ku garan bayt oo urku baalaata ma qalbigayga waxa ku jira garan kartaa seed ku garan inaan xanaaqsanahay iyo inaan faraxsanahay muxuu ahay aan muxuu raali ah markaas wuxuu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam u fiirso wuxuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam Aisha markaad raali tahay oo faraxsan tahay waxa tiraahdaa bala wa rabbi muhammad maya muhammad rabbigi baan ku dhaartay baad tiraahdaa muhammad rabbigi baan ku dhaartay markaad yara xanaaqsanto lagugu jirana waxa tiraahdaa la wa rabbi ibrahim ibrahim rabbigi baan ku dhaartay baad tiraahdaa markaad faraxsan tahayna magaca nabiga sallallahu alayhi wasallam bay sheegtaayo rabbigi bay ku dhaarataa rabbi muhammad markay waxoogaa yara wax qoonsatana magaca inta isaga tagta nabiga magacii awowgi ibrahim bay markaa aadaa markaas waxay leedahay ibrahim rabbigi baan ku dhaartay marka soo kuma aqaano waan ku gartay markaad xanaaqsan tahay iyo markaad faraxsan tahay ku kala gartay markaas waxay tiri Aisha radhiyallahu ta'ala anhuma waxay tiri ajal lastu uhajiru illa ismaka wa runta abti rasuulillah waad ifahantay magacaaga baan ka tagi mooyee إذا ما حكرون سامين كراويت يا كام تجي كرو مال كلام ما أدي كرو لكن وجب بدنا سامين كرو وحوي مجا عاجة إنتان بدلون أباها إبراهيم إن مجا عاجة كبدش ون إبراهيم بوس كسوق شلو مجا عاجين إسقطها أنت سامين كراوي مركب حديث كم حلقة فهم يا وحلقة فهم يا النبي صلوات ربي وسلام عليه حاسكي سو أخريه وقرانا يا وفهنسيا مركب حناق سنتاي iyaduna sidoo kale way taqaanay Maxamed sallallahu alayhi wasallam saas taraadid waxa soo dhaweyn kara waxa kamid isfahamka iyo guriyuhu inay noqdaan guriyo liibaan iyo xasilooni iyo deganaansho ku nool waxa kamid labada ruux inay isfahmaan markaad ruuxa fahantana meelaha iyo pointiyada dacfiga uu kaleeyahay daciifka ka yahay iska ilaali meelaha uu ka fiican yahay tanmiye iyo xooji meelaha uu ka danqanayo nabarada ka ilaali waxay keeni karaysaa isfaham iyo xasilooni guriyo ku wada noolaadaan waqtiga dhamaaday 10 qodob ayaan ku tilmaamay insha Allah ta'ala asbaabta keeni karaysa gudnaheenu noqdaan guriyo degan xasiloon liibaan leh intaan aakhira la gaarin ba aynu ku nasanno awlaad khaar qabto barakaysan aan ka helo inaguna nolol macaan oo qabow oo kalgacayl iyo naxariis ku salaysan inaynu ku wada noolaano jazakumullahu khayr wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته وحين مقدمين إن شاء الله تعالى أنت نقدر لمن ساعدي يا شيخ وقلت لك لي شيخ قبل أن نقول السلام عليكم شيخ وحد يقول أنت هدي وننكو وناقبه ونقول دارت إنه سناقبين سوى قبه وحي حكم كيسا السيد دبها هدوبك ويرمقبه حاول توسعط هذه ما تسكت واحد سو هذا بين صومر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يا إذا ظننتم فلا تحققوا حديث ظني يتهم إذن كش هذا بقى لنا حقيقي هيسدي يا ولا تجسسوا هيسدي بقى لنا هذا واحد شران يقع بس كصبيح دونه وذاتك حدادسك كده وحادي عجب سيقول لا يشيء قصة وقصة عظيمة قبل ما واحد الله شيء نكاو هويني قرصون بقبا هوين بقى قرصون وي أوجاتي وين حقيقي شيء إنه هويني قرصودي بقبا مركي أوجاتي شبه أوتري ما بين الله قادم ما بين الدرين سنين بقى هذا هو حلويري ناوى لقول قرصدي محامش كل جهاد أرنت أوجاتي ما كعدي دود ما صيرتي دود وجيران ما دو حوجا كدار ست يا حوجا ما صيرتي حتى ما كدار ست كور عقلي بدون بهذا واحد نا هذا هدام بودو أون قيليو ونكي عن كليتي كله وبري اللي يراهنو واشرتا وانا قبا وانا حاس كيجي وبنانك يوصل بحضو sooma iimaanayso oo laba mid inaan ninkii isweyno
oo inaag dib ka timi ninkayga iga qaadato iyo in habeenada layla qaybsado soo labada mid imaan maayaan sidaas daraadeed waxay tiri habeenadayda oo dhan anigu aan haysto isaguna meelaha hadhow dhuuntay tiri maalinkii maxay yeeli hadduu meelaha dhuumalaysan nin dhuumalaysanahay ya gabadh aad u caqli badan bay cajab badan sidaas daraadeed dabagalkan faraha badan iska daayo oo waxyaalaha nolosha khadhaadhayay ka mid tahay tuhmadii waswaaskii aan ka hadlaynay bay ka mid tahay wixii bannaanka u soo baxa wixii hawshiisu leeyahay laakiin wixii aan bannaanka imaanin dabagalka iyo tatabbuca iyo faraha isaga qaada wallahu aclam جزاه الله خيرا سؤال شغلان قبل المحنية الشيخ ويدي باكم رجاليوتي قبل جدنا وابا أي حد ما وصل من كلام يعني علامة الوقت وصل قبرك لما تسكره النبي قوار النبي صلى الله عليه وسلم قورته إلا دسه إلا النور هذا يوم وديني أنت أقول بدن الله سوين كروح قبرك عرضي لك سوساري أنت بلوجو عليه عرضنا سيدا كرسك جيلو كلا سيدا هذا السماينو كرلو يرقى ضوحير وتاكا أو كلا عرضها سيهدي باب بعضي وقبرجي ودمي عروا لوجو علين كراسي قبرجي قبر أهان لوجو قرط لأن قبرك مسلم كذاتك مسلمين تقبور تود احترام بيلاد مرك قبر أهان لوجو قرطه لوجو ما يستاجي كرو لوجو ما فريسن كرو لوجما حاجة جودن كرو احترام كودي لي هدي مركع عردي أي دنتي عردي ولا تستوسين كرا أما اسمه قبل كوركي صلى الله عليه وسلم نبي وديد صلى الله عليه وسلم هذه مسألة علامتها هي وحد قصة من كرتا علامات القرآن هاي مثلا الآن أتكتكتو علامات أتكو قنصته دقح أتصارته مثلا هو هاي مدحي سأتكو قنصته واحد كو قنصته القرآن هاي نبي قوي كسوقته صلوات ربي وسلام عليه قرآن كان وانا ديدي قبورته كورك هذا إنه حلقو قرأ أيضا وأرين النبي قيم ديدي صلوات ربي وسلام عليه الله أعلم جزاهم الله خيرا شغلنا محجادة هي محيدي انت إسلامك كقبتها تمها قيمنا إلا خير وقيمنا إلا داية ويلاش أنت أكو أغينا قبلينا مصمي ويلاش هلو أغينا يتشاق حيري يا حيري يا صميان ملا وحوي قبلوه ملها الفليه تمها إن قار لحي قارن للدايو نبي قواتي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع نبي وحو الريبي قزع قزع وحل إلى هذا انتمها قارن للريبو قارن للدايو قارن للحيرو والريب رسول صلى الله عليه وسلم مركا ما بنانا أما وذا حيرة أما وذا دايو رسول صلى الله عليه وسلم عرضت الله سمين شرواقي هوري قاب كان هذا اليرد ويلشو أي كدكتان نوع البحنمة يهرمرك أي مودان واجي بادية أنا كوكر بادية كوكر بادية واحد لسمين شري ويلش الدور يربى لوري بشري الدور ير أنت لقى سوى الدور يربى لوري بشري قبلها أنا تيمه هذا لحظة أنت لقى حيرو با أنت كور لوري بشري حوجاجي أنا أفرطن صركور بادية كنا قانا bay hadda wiilasha magaaladu moodeen in ilbaxnimada horumar soo kordhay bay u qaatay marka timaha ama ilmaha noqdo ama ruux weyn ha noqdo ama wada xiir ama wada daa laakiin qaar xiir qaarna daa nabigu waa diiday salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wallahu aclam جزاه الله خيرا قولنا وحنا السلام عليكم شيخ قف بادنتي وحكتي حول بدن المرء حاليا مثل ما لها حوالي اسم الله صدق كلام حاليا ما لمين هدوسن لهين عد حش وابا غريب روحا واحدة حل لهين حولها وحلقين يا هدي مسلمين تو إليهم دولة بنكي قدحة أما حولها بيت المال كمشي هذا لقين يا مسلمين تو نبع حلية يجا انتفاع صغير هدوسن شيرين دولة نوعاسة يو هي هذا النوع أصلا يسنو لجوري شيء هدينا تشرين ولا صدقينا صالح العام كا دناها كود المسلمين تعيال وبحنا يا على المساجد عافيمات كا ملها عام كا ضد كدبات يسنو للسيو يدين روحنا الصدقة ونقول إن شاء الله تعالى ضد كاس مؤمنين تعبانة
dhaxalkiisa iska leh walmu'minuuna walmu'minaatu bacduhum awliyaau bacdin cid kaloo uga sokaysa marka la waayo dadkaa walaalihii ee diinta walaalaha ku yihiin baa xoolihiisa iska leh iyagaasaa intifaacsanaya wallahu aclam جزاه الله خيرا وقتي أنا ما إن شاء الله تعالى سؤالها كله علماء كلام نقول دون أمديا إنه قيبت وقيبت يقول رئيس محمد درسي سياق سونا قلنا ما ذي حين أقول إن شاء الله تعالى الدكتور محمد شيخ حسن درسي سي يا الله إنه وقصة بسن مرحلة تي إتش أما هو مرحلة أو كفكو وقان جاري يوم هو هاي وتابعها أخرين يقول إن شاء الله تعالى تصير وكن بارك الله فيك